gabdhaha dumarka ugu quruxda badan waa 10 nooc. 1. haweeney xifdisay kitaabka Allah kuna dhaqantay waxa ku qoran. 2. haweeney ku dayata saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. 3. haweeney aanan fiirin qof walba oo raba inuu xijaabka ka dhigo, iyaduna waxay raali gelisay Allihii abuuray subhanahu wa ta'ala, waxayna raadinaysaa doorsanaan, nadiifnimo iyo xishood. 4. haweeney baar u ah waalidkeeda una taagan waajibaadkooda. 5. haweeney adeecda ninkeeda, waxay ku adeecdaa oo warkiisa yeeshaa wax walba aanan Ilaah caro gelinaynin subhanahu wa ta'ala, waxayna u noqonaysaa sawjkeeda mid caawisa saaxiibna la ah. 6. haweeney nafteeda ka celisa hurdada macaan, waxay u kacaysaa salaada, waxay Ilaahay weydiisanaysaa ajar iyo abaalmarin maalinta aakhiro. 7. haweeney soonta soonka sunnada ah iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala raali ahaanshihiisa raadinaysa. 8. haweeney carabkeeda ilaalisa oo aan dhex gelin wax ka sheega sharafka dadka muslimiinta. 9. haweeney aanan fiirin waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka reebay. 10. haweeney xifdisa ninkeeda maalkiisa iyo caruurtiisa, marka uu maqan yahayna waxay ilaalisaa nafteeda iyo caruurteeda. gabdhahan ayaa ah dumarka ugu qurux badan adduunka.